dagaal baan ayaa keymaha ka socday tani oo keentay in ragga badi ay ku baaba'aan dagaalkaasi. Deegaanyahanka sheegtay ugu muhiimsan ayaan aragnaa Koofiyad qarsoodi ayuu xirtay waxaana isku diyaariyay inuu mar kale dagaalamo. Runtii tani waa riyo ay ku riyoonaysay gabar lagu magacaabo Eenaya taasoo ku sugan kaniisada. Kaniisada markay dhammaatay waxaa soo kaxaysay sodohodeedii oo lagu magacaabo Marwen. haweeney uurle ayay markaasi caloos ka taabatay iyada u ducaynaysa in wiil wanaagsan ay dhasho, laakiinse jijinta gacanteedii ku jirta ayay sidii ku soo hadaya. Labadooda intii ay dhinaca guriga u sii socdeen waxay arkeen nin faras wata kaasoo meel fog iyaga kala socda. xitaa Said ayuu eegayay iyaguna waxay u sii ambabaxeen dhinaca guriga. Mar dambe haweeneydu waxay isku diyaarisay inay shaqadeeda maalinlaha ay qabato. Casho ayayna karisay, wax kale oo ay cunaan ma haystaan, mar ayayna markaasi samaysatay. kadib habeennimadii qof walba markuu socdo haweeneydu waxay ku riyootaa waqtigeedii caruurnimada iyadoo ciyaar kula ciyaaraysa dhinaca xeebta. isla xeebta ayay mar kala timaada. subaxdii xigtay Marwen ayaa waxay aaday suuqa si ay jijinta u soo gado, waxayna soo gaday khudaar ay hadda reerku wax ku karsadaan. weli aana waxaa ka dheebguuhaysa ninkeedii oo lagu magacaabo Simaasa. isagoo weliba dagaalka ka soo laabtay dhulka ayuu fadhiistay, madax xanuun aad u badan ayaa hayaa. riyada waxaa kadka geliyay Marwen oo toosisay, aad ayay iskugu farxeen oo ay hadda cunto u keentay. laakiinse khudaarta hadda laga soo gaday waxay noqotay mid korontaya. Marwen waxay gabadha aana ka dalbatay inay hadda iimaan ay yeelato oo ay wax kala helayaan. waqti kadib xeebta ayay aaday, halkaas waxay ku aragtay nin kalluumaysato ah. markii u soo dhawaatay waa ay aqoonsatay waa saaxiibkeedii caruurnimada, waa nin lagu magacaabo Jago. waxay weydiisay inuu dagaalku dhammaaday in kale, laakiinse isagu waxa uu uga waramaya in dagaalku soo gabagaboobay. aana waxay wax ka weydiisay ninkeeda tani oo keentay inuu Yago wejiga hoos u dhigo. dabadeed gudaha ayaa loogu yeeray waxaana la bilaabay in dagaalka laga waraysto. waxa uu uga waramaya sida uu dagaalku u xumaa, dhimasho iyo dhiig badanna meesha ay ka dhacday. waxauna u sheegay inuusan dagaal dambe gelin oo uu hadda iska noqonayo nin kalluumaysato ah. kadib waxau yidhi aniga iyo Shimas dagaalka ayaa kasoo baxsanay xerada ciidanka kasoo baxsanay keemaha ayaa la inugu helaya. ragga cadow ah ayaa markaasina helay, taas oo keentay inay ninkaaga ay meesha ku jilaan. waxay ahaayeen rag tuuga ah. gabadha jilubkeedii ayuu taabtay si uu markaasi uga naxariisto. iyadu arrinkaasi keymaha ay iska tagtay iyadoo weliba keligeed iska ooyeysa. meel fogna waxay ku aragtay ninkii fardooleyda oo mar kale isha ku haya. habeennimadii xitaa guriga ayay ka baxday si ay murugadeeda uga soo takhalusto. muddo kadib anug yar ayaa dhinac xeebta yimaaday, anugaas oo hadda dagaalka ka soo baxsadaya. haweeneyda Marwen ayaa gadaal kaga timaaday oo meesha ku dishay, waxaana ka qaadatay dhammaan lacagta iyo wax walba oo qiimo leh. needka ayayna markaas bilaabeen inay u duceeyaan. haweeneyda duqda suuqa ayay aaday si ay wax kale ugu soo gato. hadeertaan casho habboon ayay reerku helaan. subaxdii xigtay iyada oo beerta ka shaqaynaysa, isla ninkii ayaa meel fog ka eegaya, tani oo keentay inay gudaha cabsi darteed u cararto. markii Marwen u sheegto hooyadaasi waxay u sheegtay in waxan uu yahay malcawaalkeeda. haweeneyda oo kaniisada ka timaaday oo keligeed socota Yago ayaa u yimid, waxayna bilowday inay iska indha jirto. isagu waa uu soo dabagaray isagoo hadda u sheegay in ninkeedii uu dhintay. kadib ilaa hadda weli waa uu daba socdaa. Marwen ninkani kuma faraxsan inay mar kale aragto. intii lagu geli jiray waqtigii wax la karinayay, Marwen waxay kiratay inaysan weligeed Yago jeclaan, xitaa markii uu yara, waayo isagu aad ayuu u hinaasa badan yahay. markasta oo ay iyadu magaalada tagto isagu wadada ayuu ku sugay jiray oo uu si qarsoodi u soo raaci jiray. keymaha dhexdoodana mar walba waxay ku aragtay in qofkaas uu iyada weedeysanayo. galabtii xigay Marwen waxay martiqaaday nin wadaad ah. ninkaas wadaadka cuntadii ugu dambeysay oo ay hayeen ayuu siiyey, waxauna bilaabay inuu u mahad celiyo. waxa uu tusayaa waxyaabo qadiimi ah oo uu ka soo ururiyey meelo kale. iyagu aad ayuu quruxdooda dhaceen, waxauna marka u sheegay inuu ka gadayo. Marwen ayaa markaasi gadaal ka soo martay, waxayna u sheegeen inaysan wax lacag ahayn. sababta la ajilgeed koorta ayay bilood inay sidii uga jarto, sidii ayay meesha ku dilaan. gabadha yar way argagacsan tahay, waxayna markaasi hooyadii ka dalbatay inay aamusto oo ay helayaan alaab ay hadda wax ku soo gataan jiilaalka oo dhami. habeenkiina meedka ayay bilaabay inay dhinacayo webiga ay geeyaan, waxayna xitaa isku dayeen inay dhulka dhiiga oo dhami ka nadiifiyaan. maalintii xigtay islaantu suuqa ayay u baxday si ay hadda alaabta wax ugu soo gato. buuq qariib ah ayay iyana dibadda keenta ka maqashay. keenta ayay dhinaciis u dhaqaaqday, nin oday ah ayay aragtay. markiiba meesha ayuu bilaabay inuu isagiyo fariskiisa meesha ka cararo. intii ordaysay Yago ayaa isku day inuu markaas uu qabto.
Yoga waxa uu uga waramaya inuusan cidna ku dhex arkin Clinton iyadii ayuu dejiyay waxauna qirtay inuu hadda ninkeedii uu dhintay waxaana u soo jeediyay rabitaankiis inay caaw ay ku kulmaan meesha carruurnimadooda ay ku ciyaari jireen inta guriga u sii socotay waxay aragtay islaantii oo hadda dhar qaaliya xiran cabitaan cabaysa sida boqorada oo kale saqbarka ayay sariirteedii ka toostay waxayna aragtay in hadda maawo ay horido keemaa marisii dhex marisay waxay tagtay meeshii uu deganaa tani oo keentay inay labadooda isku soo dhawaadaan subaxdii Yoga waxa uu aana ka dalbaday in hadda ay isaga ay la noolaato laakiin iyadu waa ay diiday guriga ayay dib ugu soo laabtay khaasatan sariirta islaantu waa ay soo jeeday waxay wax ka weydiisay meeshii halkayana u sheegtay inay u baxday inay hawo cusub soo qaadato islaantu waxay u sheegtay aniga waxa la ii soo diray inaan adiga ku ilaaliyo oo aan ku daryeelo habeenadii dambe islaantu waxay wadada u gali jirtay dadka socdaalka oo ay dhammaan alaabteeda ka qaadan jirtay maalinkii dambe iyo kaniisada jooga hooyo anugeedii aad ayuu uga ooyay buuq badan ayuuna ka sameeyay waxaana lagu amray in anuga dibadda loo saaro galabtii hangay Yoga ayaa markii guriga u yimaaday suu aana u arko laakiin islaantaas uma aysan ogolaan waxayna ku ambartay inuu hadda meesha ka tago waxaana islaantu ka dhaadhicinaya in aana mar kale u kalanto fursad kale oo ay ku guursato si caruur u dhasho isagoo rab inuu gudaha soo galan mindi iyo horta kaga qabatay meesha ayuu iskaga tagay waxaana dambiyadu ay maqlaysay hooyada ayaa bilowday inay u qalbi qaboojiso markii xigay gabadhu waxay bilowday inay hadda shaah gaar ah ay samayso shaahas oo keenaysa in islaantu si qoto dheer ay iskaga seexato kadib timaheedii ayay markaasi qurxisay dhar qurux badan ayayna xiraatay Yoga ayay si qarsoodi oo la kulantay waxay bilaabeen inay sheekaystaan oo ay weliba ciyaaraan sida carruurnimadooda islaantu mardanbo ay toostay waxay garowshatay inay hadda keligeed ay tahay banaanka ayay u soo baxday mindi ayayna soo qaadatay waxay aragtay ninka ay gabadhu sheegayso hadda guriga u soo dhawaanaya ninkaasi boorso ayuu watay ninkaasi gudaha ma uusan galeen mar dambe uu keenta aadayna ilaa hadda ay daba socota dhulka ayuu ku dhacay inay gadaal ka soo marto mindidii haysatay ayay markaasi dhowr mar ay ku dhufatay markii uu dhintay dhammaan lacagtiisa oo dhami ayay ka qaaday koofiyada uu qabo ayayna markiiba ka saartay subaxnimadii xigtay Yoga waxa uu soo bandhigay in labadooda wada joogaan oo ay wada noolaadaan carruurna isku dhalaada dhowr saacadood kadib gabadhu guriga ayay timaaday waxayna markaa islaanta isku daysay inay ka dhadhacisay in hadda ninkeedii uu maqan yahay oo ay rabto inay nin kala noolaato balse islaantu markii ninkaasi maqasho aad ayay u caroon jirtay iyadoo welibeed ku tilmaamtay inay tahay dambiile aan oo cabsanaysa ayaa meesha ka soo arartay oo guriga Yoga timaaday waxayna u sheegtay inaysan mar dambe islaantaasi ku laabanin oo ay la noolaanayso subaxnimadii markuu waagu baryay aana waxay ku qancaysa in hadda kaniisada u raaco isagoo kaniisada wax dhan ah kama laha labadooda kaniisada ayay yimaadeen gabadhu waxay bilowday in markaasi yara ducaysato isna waxa uu sheegay wax walba inuusan dagaalka ku dhimaana markay tan maqasho waxay dareentay inuu hadda uu been u sheegayo balse uu sheegay inuu doonayo inuu iyada u guursado arrinkaas aad ay uga murugootay sida rasmiga qof walba oo mar walba dima imaan jiray oo fardaha watay waxa uu ahaa Shimas markuu dagaalku ka soo baxay waxay markaasi la kulmeen jidka kooxatuuga isaga ayaana markaasi tuugtay oo dhami la dagaalamaya mar dambe nin fardoolay ayaa u soo dhawaaday ninkaasi waxa uu xirnaa maaskar cajaa'iba markuu ninkii uu meesha ku jirin waxa uu bilaabay inuu madaxa u xirto tani oo keentay inuu isbedelo xaaladaas aad ayuu hamed koofiyada ayaan laga sii waayay anna meesha ayaan ka soo ordaya sida caadiga koofiyada hadda maawin ayaa haysa qofkii ay dishay oo ay tuuriyeynaysa cid kale ma hawa iyada wiilkeeda isaga ayaana mar walba guriga qaybta kore ka ilaalin jiray hadeertaan waxay markaasi bilowday inay koofiyada ay xirato aana oo caraysan ayaa waxay bilowday inay dhinacayo guriga ay tagto iyadoo weliba iska indhatiraysa codsigiisa meydka ayay sii aragtay ninkii ayay aragtay cabsi darteeda dhinacayo guriga ayay u orodaya laakiin markii ay soo jeesatay halkaasi codka Marwa ayay ku maqashaya iyadu u sheegaysa in iyadu ay tahay balse ay ka cabsanaysay hadda waa sodoyadeeda waxa madaxa ku jira ayayna sodoyadeeda hadda iska saari weydaya tani markaasi gabadha keed inay hub soo qaadato sida ay koofiyad ku kala jartaya islaantaas wejigeeda oo dhami aad ayuu bilaabay inuu u gubto gabadha ayayna ka dalbatay inay hadda iska cafiso maadaama wax khaldan ay samaysay dhulka intii ay joogeen koofiyada ayaa isku soo laabatay waxaan ogaanaynaa in tani aysan ahayn koofiyad caadiya labadooda guriga gudihiisa ayay bilaabeen inay markaas ku dhuuntaan iyadoo qof u muuqday inuu albaabka soo gargaraacayo koofiyada ayaaba hortaal aana ayaana hadda koofiyada soo qaaday islaanta waxay ahayd mid weli ka cabsanaysa koofiyadani
subaxnimadii xigta gabadhu keynta ayay aaday mar kale ayayna